kusoo jeedinaysa laakiin way qayaanaysaa khaalideediyay wax badan hasii sugin ana ereyga ku xigi doona ayaa jumladu ku fahmi doontaa yaa khaalideediyay wax badan hasii sugin ayuu leeyahay shahid baa qaadanaya markaa khaalideediyay xabadeediyay wax badan hasii sugin buu leeyahay hadda fahmaysaa markuu jeedkiisa ishqeeto haddii uu jecel ku hayo kadib sheega jecelkaaga uu leeyahay yani ha sugin baadad aad mugta wax badan ha sugin jecelkaaga sheego macna haddii uu jecel ku hayo kadib jecelkaaga sheega ayuu leeyahay ayadu waa soo galaysa markaa qaaligiiyo wax badan ha sii sugin yani markuu jecelku iska sheego macna ha sugin xabadkaygiyo qaaligiiyo wax badan haba sii sugin ba way qiyaanaysaa lak filinkan haddii uu jecel ku hayo kadib sheego jecelkaaga bay leedahay farana berigan iyadu jecel baa ka dhacay ninkan jecel rasmiga ka dhacay haddii uu jecel ku hayo kadib sheego jecelkaaga sheego halkan xiriirku ka aasmay filinkan waan ku jeclahay oo aan ku jeclahay si waaliya waxaan ku jeclahay waxaana ku doonaya uu leeyahay si waaliya wuxuu yiri marka hore waxaan ku jeclahay oo aan ku jeclahay si waaliya I want you like crazy waxaana ku doonaya si waali buu leeyahay shay miraha labaad shahid baa qaadanaya jecel badan u qabo qofta idina qayaana wadaa ya haddana cumad bayna ku tuuraysaa micna nin kale ka socota ayda ninkan ku shaqaysarta aad u tiba asaga dhasha dilaya filinka ee jecel buu ahaa fida 2004 buu ahaa ma doonayo inuu ku lahaado qof kale adiga waxa tahay nolosheeda adigu waxa tahay nolosheeda qof kale inuu ku lahaado ma doonayo uu leeyahay qofka aan aqrisanayay habeen iyo maalin yaa waa adiga sheekadeyda markaas u joogaysaa fiiriya waxay dhihi doonto waan aaminay hadalladaada ayay ku leedahay sidaa daraadeed waxaan ku dhex gashanayaa labadeeda gacmood dhexdooda ee kaalay soo gal hab ayayna siinaysaa markuu warka u sheegay noloshayda adiga ayay ku doonaysaa noloshayda adiga ayay ku huraysaa noloshayda adiga ayaan ku hurayaa bay leedahay haddii uu jecel ku hayo kadib sheego jecelkaaga bay leedahay kareena haddii uu jecel ku hayo kadib sheego jecelkaada bay leedahay waxaan ku jeclahay oo aan ku jeclahay si waaliya waxaan ku doonayaa si waaliya miraha saddexaad waa qaybta meesha ugu dambaysa weeyaan shahid warqad jecel asoo qoraya ayay ka bidaysaa asoo iyadoo kula dagaalaysa ka bidaysaa kadib meel ayuu iska tuuraya si warqadda jecel ku soo qabto way yaabaysaa gabadha ayaana haysta qaadanayso ninkan nin waan ku tilmaamaysa hal warqad oo jecel iduu qoraya ka bibtay ayuu isaga tuuray meel buunda ah kadib uu soo qabtay warqadii way la yaabtay ninka jecelka haya waxay dhahaysaa marka way yaabtay waxaa tahay qof uu hayo jecelkii ugu waalnaa abid waan xakamayn waayey madax adeegaaga nin yahow ay leedahay kaan nafta la wadaagayow waan ogahay inaan aniga ahay sababta deganaan la'aantaada adig dhamma degnidba anaa ka dambeeya leedahay asaasuu jawaabaya waxaan kugu haysanayaa riyooyinkayga iyo weliba anigoo kaa fikiraya waxaan kugu qarsan doonaa indhahayga ee kaalay macaanteedii uu leeyahay markaasuu si bilaaba jecelkaygii iminka igu qab aaminka igu qab ayuu leeyahay markaasay yaabaysaa aaminka igu qab ayuu leeyahay haddii uu jecelku hayo kadib sheego jecelkaaga haddii uu jecelku hayo kadib sheego jecelkaaga ayaa muhiimadda heeskan uu yahay gabaray twitter la abeen facebook la ka hadlin sheego waxaan ku jeclahay oo aan ku jeclahay si waaliya waxaana ku doonayaa si waaliya aan jecel sheego waa idili manila doona wiilka maalin doona mise gabarta lagu doona adiga
jaceelka sheega duu jaceelku hayo wiilyahow adina jaceelka qadari gabar yaduna middaa qiimay heeskii caawa jacayl intaa aynu